توبرها موريزيو ساري haddaba macalinka kooxda kubadda cagta ee Chelsea Maurizio Sarri ayaa qirtay in ay jirto dhibaato haysata kooxdiisu waxa uu hadalkiisan imaanaya kadib markii ay barbaro gol la'aan ah ay xalay kula galeen kooxda Southampton kulankoodii 21aad xil ciyaareedkan horyaalka Premier League. Maurizio Sarri ayaa kadib markii ay ciyaartu soo dhamaatay waxa uu la hadlay shabakada caanka ah ee BBC waxa uu markaasi muujiyay sida uu kaga xun yahay in mar kale ay dhibac iska lumiyaan wiilashiisa Blueska. waxaan u maleynayaa inaan si fiican ugu ciyaarnay 80 mitir halka 20 mitir kale ee la mid ah gudaha garoonka ay dhibaato naga haysatay. waxaan sameynay 4 ama 5 fursadood aan gool ku dhalin gaarnay balse fursadaha badan waxa markaasi muhiim ah in ugu horeynba goolka koowaad aad ku dhaliso. kubaddu ma aysan u sameysteen hab inagu inoo wanaagsan waxa markaasi inaga hor imaanayay saameyn xoogan ee gudaha garoonka ah. waxaan ciyaarnay la'aanta ciyaartooy muhiim ah sida Petro iyo William ee ka baxay 30 daqiiqo ee ciyaartu ugu horeysay. qaybta kursiga kaliya waxaan ku haysanay hal ciyaaryahan ee dhanka weerarka ah waana left check oo isna xaaladiisu jir ahaaneed aysan wanaagsaneyn sabab la xiriira dhibaatooyin uu ka qabay dhanka dhabarka. waa in aan ciyaarnaa 3 maalmoodba mar ayuu yiri kama fikirayo sanadka soo socda ee waxaan ka fikirayaa kulanka soo socda aan ciyaari doono sida aan ka yeeli lahayn. kama fikirayo sidoo kale waxyaabaha ay shakhsiyaad qaar maankooda ku hayaan ee waxaan doonaynaa in aan markaasi si wacan u ciyaarno kulamada soo aadan. tan waa markii ugu horeysay kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo hogaaminayo Maurizio Sarri ay ku fashilmaan weerarka Blueska inay dhaliyaan wax gool ah labadii kulan ee xiriirka ay la soo dhaafay. barbaraha ay gashay kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxay ka dhigan tahay in ay haystaan 44 dhibcood waxa ayna markaasi fadhiyaan booska afraad ee dhanka kala sareynta horyaalka Premier League oo kooxda kubadda cagta Chelsea kulankii xalayna marka ay barbaro gashay laga diiwaan galiyay in booskaas ay ku jirto waxaana halis ugu jirtaa in markaasi kooxaha ka dambeeya ay soo gaaraan ama isku dhibcaad noqdaan marka ay kooxdu ay hadii ay ku socoto in ay luusgareyso dhibco isla markaana kooxaha kale ay markaasi guulal soo gaaraan. Manchester United oo iyadoo 4